maamulka Jubbaland ayaa maanta soo bandhigay daawooyin iyo cabitaano aad u badan oo dhacay kuwaas oo ka soo arooriyeen goobo ganacsi iyo goobo caafimaad oo ku yaala magaalada Kismaayo iyadoo shixnadahan lagu gubay goob qashinka lagu gubo oo ku taala duleedka magaalada Kismaayo cabitaanadan iyo daawooyinkan dhacay ayaa waxa soo qabtay waaxda fayadhowrka wasaaradda caafimaadka Jubbaland waxaana daawooyinkan la soo bandhigay intooda badan laga soo ururiyay goobo caafimaad oo waaweyn وكان دكتور أحمد تاجر oo ka tirsan guddiga fayadhowrka ee daawooyinka soo aruuriyay oo faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay soo qabteen iyo waliba goobaha ay ka soo aruuriyeen Muslim Aid UK waxaan ka soo qaadnay 6250 daawo SRCS Farjano MOBD geeda ama MCH keeda aan dhaho waxaan ka soo qaadnay 32456 item MCH ku yaala calalay waxaan ka soo qaadnay 288 item tirada guud ee daawada marka la isku dardaro kulligeed marka lagu daro farmashiyaasha Kismaayo ee baqaarada ganacsiga daawooyinka kulli waxa laga soo qaaday tiro gaarayso 600,380 iyo cabitaanka guud ee la soo qaaday wuxuu gaaraya 24,410 goobta ayaa waxa iyana ka hadlay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Mudane Cabdirashiid Gooni iyo gudoomiyaha degmada Kismaayo Mudane Ibrahim Timajire waxayna si wada jir u sheegeen in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid lagu arko ayagoo iibinaya waxyaabo dhacay waxa meeshan ku tusaaleynaynaa reydka ugu badan ee Soomaalida dhinta waxa weeyaan caruurtana waxaad aragtaan daawadan waxa ku qoran moolta fitamiin waa daawada fitamiinna badan bay ka kooban tahay waxay dhacday shantii bishii shanaad 1910 farmashiyay taalay ilma caruur oo xanuunsan baa loo soo qaaday 2012 bayaabeeda ku dhaashay kalarkeedu sidoo u yahay daga ilmihii oo caafimaad qaba markii la keenay xanuun yar uu hayay markii taa la siiyo hadda dhimasho gaaraya uu dhimanaya kuwa shaatiga Soomaaliyeed intay gashadeen waxa ka baac mushtarahay hay'adaha samafalka sheeganaya ama international ha ahaadeen ama local ha ahaadeen hadda dhakhtarku kulli magac hay'adda wata dawada dhacday na waxa keenaya waa iyaga waan uga digaynaa hay'adaha noocaas kuwa MCH-da jooga ee u imaanaya goobaha caafimaadka loo imaanaya waxa ka baax mushtaray waanu idin ognahay wayna aragnaa way idin qabanaynaa sharciga laga horkeenaya waxaan uga digaynaa dadkii hadda waxa kan keenay oo laga soo qabtay wax kiisa laguma qaadin oo hadda yani waa nasiib badan yihiin oo ilaa haddeer waxa ay keeneen wax dambiga looma raaco laakiin waxaan u sheegayaa oo aan uga digaynaa maanta wixii ka dambeeya cid kasta oo keenta daawo dhacday ama raashin dhacay ama wax dhacay lagu soo qabto dambi bay noqonaysaa tallaabadan lagu ururinayo waxyaalaha dhacay ayaa ah mid hore loo qaaday maadaama xilliyada hore aysan jirin cid dabagal ku sameeysa waxyaalaha ay ganacsatadu ka iibinayso dadka shacabka ah Cabdi Casiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Kismaayo.